in ka badan 400 oo muhaajiriin Afrikaan oo ka soo cararay qaaradda Afrika ayaa waxaa la sheegay inay dooni kula degtay badda u dhaxaysa Masar iyo Talyaaniga. doonidan ayaa waxaa la sheegay inay ka kicitintay dalka Masar iyadoo ku sii jeeday waddanka Talyaaniga. tahriibayaashan ayaa waxaa la sheegay in doontani ay ka dambeysay inay degto xurguf xagga dagaalka oo soo kala dhex gashay qowmiyadii kala jinsiyadda ahaa ee saarnaa doonida, iyadoo la sheegay in dadkii halkaasi ku dhintay ay u badnaayeen Soomaalida doontani saarnayd ayaa waxaa la sheegay in tiradooda lagu qiyaasay 230 ruux oo Soomaali ah. dadka doontani laga badbaadiyay ayaa waxaa lagu qiyaasay tiradooda 23 ruux oo u badan Soomaali. dadkani la badbaadiyay ayaa waxaa la sheegay inuu halkaasi ka qaaday markab ku socday waddanka Greega, iyadoo dadkaasi haddan la geeyay waddanka Greega jasiirad ku taalo oo la yiraahdo Kamalata. wararkan la xaqiijin ayaa sheegaya in Soomaalida nool ilaa haatan aan la xaqiijin tiradooda. sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxa qaaradda Afrika si weyn uga soo qulqulaya dadka muhaajiriinta ah ee ku soo qulqulaya qaaradda Afrika. sanadkiiba waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 10,000 oo qof oo muhaajiriin oo ka soo cararay qaaradda Afrika iyo Suuriya inay soo galaan qaaradaha Yurub. Soomaalida dhimatay ayaa waxay u badan yihiin dalka Somaliland, iyadoo xukuumadda Somaliland ilaa haatan aanay ka hadlin dadkani tahriibayaasha ee ka cararaya waddankeeda ee ku qulqulaya qaaradda Afrika ee berihii ugu dambeysayba sida xad dhaafka uga tahriibaya Somaliland. xukuumaddan Axmed Siilaanyo ayaa markay mucaaradka ahayd ayaa waxay ku andacoon jirtay in dhalinyarada u sameyn doonto shaqo abuur, balse waxaad moodaa inay uga sii dartay dhalinyaradan ayaa waxay ka cararayaan shaqo la'aan baahsan oo ka jirta Somaliland, iyagoo sheegay in habka shaqada aan lagu qaybin aqoon ahaaneed lagu qaybiyo hab qabiilaysan.